بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سو دوادا دمانتينبا وعبد السلام جنتلمان وطبعا سقيو صاحبكي أما عبد الفتاح بودريبا هذا أطلع السلام يا أطلع كايكا تاوانيو هي الكيرم طبعا لصوصيو. سو دوادا ولا ليال وباقان caawa halkan ka jeedinayo mar dhexdaasana bulshada inta halkan igala socotaa way la socdeen clip yar oo soo dhigay balse reer bukaan socod iyo dadka ka xanaaqa runta oo dhan ee faraha badan leh ee lagu soo habaaray way Cabditax Boodari aad baan ku salaamaya aniga inka horta Cabditax Boodari Soomaali waxba anagu calaacaliyo waxaas nama tara laakiin waxa lagu mashquuliyay oo lacag lagu soo siiyaa ciyaal yar oo ilmo bukaan socda Facebook-yada ka xidha fiidiyoodii soo dhigaan tashuush ku furayo virus baan hadda talka soo dhigay isagiin baan ku celinaya insha Allah taala lacag baan lagu soo siiyo nimanka aad ee Soomaali aftuubay iyo ragga naaxay ee laga naaxi waayay ayaa waxay jecel yihiin wixii xaq ka hadlo oo dhanba in ay dagaal ku soo qaadaan oo ay lacag ku siiyaan inama roob bixiyeen programmistayaal baatini software warnama xiri karaysan lamana aaminsan karo Facebook-yadeeda sheegaysaan halkiina inuu qiimo doona insha Allah taala kuwaas waa inta بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال سيدنا لو ودا سعنيبا حق هورتا إلهي با جعل الله الرحمن كابا كوغو جعلانايا inaad xaq ka hesho dulmiguna waxa laga dhaxlaa jahli fara badan cadaalad daradana Ilaahay baan jeclayn oo Ilaahay baa diiday cadaalad darada maanta waxaan la socdaa oo in ogne labada nin ee loo cumaamaday meeshan ama isu cumaamaday xitaa cidba uma cumaamadin anigu waan oran karo iyagu isu cumaamaday ilaa waxbay boobeen oo waxbay istaamriyeen oo inuu geenshaagaanta waxay sameynaysaa ee xitaa qabiilka cusub sameeyay la yiraahdo sheegan ee intay qabiilka si kaxeeyeen qoys yar oo hoose iyo wax aan anshaxa ka baxsan oo la yiraahdo sheegan ku yimi meesha waa ninka lagu magacaabo Muuse Bixi iyo ninkan uu ka dhigtay isna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Keen markii ay ku fashilmeen siyaasadii markoodii horena ay fashil baahayeen niman fashilan oo ilaahay xaq rabbi ka fashiliyba taariikh wanaagsan aan lahaynba taariikhdoodu way gabigeedaba from A to Z cidii garanaysay cidii aan garanaynba anuguna caawa halkan waan taaban doona taariikh wanaagsan marka hadii laga tagi waayo waagi 1977 markan la dagaalameynay Ethiopia amxaarada ee goday iyo xagga aan kula dagaalameynay dhulkaan laga haysto deeminka baan laga haysto waaga waxa laga yaabaa inay taariikh wanaagsan markaa way kaleeno ragii halka adag waliba Maxamed Kaahin anu Muuse Bixi ma garanayo runta fiican ragii deewaawina markaa joogay ama taariikhdiisa waa lagu soo darla markaa taariikhda yare wanaagsan weyn u haynaa markan dambe ay dagaalamayeen waxay ku dagaalamayeen waxay leeyeen cadaalad daraan ka dagaalamayna dawladii Maxamed Siyaad Barre waxay leeyeen cadaalad daraan ka dagaalamayna been way ka sameeyeen magacaanaysteen waxa la oran jiray Somali National Movement oo magacani muu ahayn wax la hada Somaliland iyo isaaq baa la jarayaayo dawlad gaar ah noqonayna ilaa Ilaahay runta sheegay buu yiri waxayna Siyaad Barre cadaalad darro lagu sameeyay boosaskii isku koobay waa tabtaay maanta iyagu sameynayaan ee qofka ka hadlana looranaya hal xiro Maxamed Siyaad Barre waxa lagu sameeyay wax noocaas ah tii laga soo gudub oo beentii ay ilaa kaweyne Axmed Sinaan ugu yiraahdaa ay sameynayeen ka kaalayba maanta aan ka hadlayaa maanta iyo waxa taagan wadoogeedana Ethiopia oo carray meel dhow markii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay halka faraxsanaydee macayla maamuladii markii hore tashuushka iyo beenta laga sameeyay lahaa dawladda ma soo dhaweynayaan madaxweynaha ma arki karaan ummadii reer Galmudug oo dhan ay u kacday Ethiopia isku tabacarray inta iska haysteen waliba Maxamed Kaahin iyo Muuse Bixi ma bay kala hadhinba amxaarku sidoo kale waa arkaysan in yar buu soo dirayo wasiirku sheego mala wasiirka arrimaha dibadda iyo gaadiidka wax noocaas sidii niman maxaabiis oo la soo qabtay oo kale ayaa loo dhaqmayo ama sakaaro dabin gasho kale bisdaad moodisi markii amxaaro soo weegeeyno dawlad yaabeen warnimada Soomaaliyeed sharaftiye karaamada iska qaaday horta halka way ku soo fashilmeen oo sabab waxay kala kulmeen waxay warbaahintooda ku soo qoriyeen security amniga adiga amnigaaga Ethiopia amnigeeda amni walaal waxani ma aha Ethiopia hantideeni baa haysta oo miisus gareynaysa si khaldan isticmaalaysa berbereyna haysta oo 19% la sii dunidana waxay kugu soo celinayaan dadkan maskaxda laga qabsaday suuqa ugu badan bay Ethiopia leedahay that's why ama sababtaas loo siiyay percentage oo miyaan discount loo sameyn karin
dadka horta ma caqligu ma keydinkan ku jiroonba haddii xitaa suuqa ugu badan ay tahay soo in discount loo sameeyo maaha sidee bay saami ugu yeelataa kaba kaale way ku faraxsan yihiin oo iyagu intaas habi bay ka dhiganayaan etoobiyana ma haysato oo qudha horta berbero qudha ma haysato Soomaaliland Puntland baa taasoo dekadii boosaaso percentage bay ku leedahay waxaasoo dhan waa rag inoo jibiyey etoobiyadana haysatay ciyaalkan loogu celinayo muqdisho joogtaa garowe joogtaa gaalkacyo joogtaa beledweyn bay joogtaa hargeysa joogtaa boosaaso waa run laakiin wax isweydiiyey etoobiya inoo jibiyey etoobiya 1991 wixii ka horreeyay ma etoobiya inoo iman jirtay ma dhulkeena inagu qabsan jirtay dee waa maya markii dowladdii meesha ka baxday nimankaasu burburiyeen ayay etoobiya iyo cadow kasta iyo imaaraad iyo cid kastaa bay naga faa'iidaysay kuwiiba ilaa maanta way soo taageen bal niyow dulligu marka insha allahu tacaala meeshan way ka bixi doonaan waa kuwan haddaba kuwa etoobiya kuu jebiyey ee garan kari waayey markay dowladdii ay lahaayeen cadaalad darray nagu samaynaysay waxaana nagu samaynaysay markii ay meesha ka tuureen ayay qabiil inoo kala qaybiyeen waxaan ka soo bilaabayaa taariikhdooda haddaba waa laga wada dharagsanyaa kolley dadku si fiican ba u garanayaan war markii ay gobollada soo galeen burco iyo hargeysa dagaal bay bilaabeen muuse bixino booramo weeraray wadadbu ku xasuuqay 1994na burcu ka sameynayay maxamed kaana 92gii burcu ka sameynayay isaguna oo dowladda cabdiraxmaan tuur ilaha u naxariistay maamulka cabdiraxmaan tuur wasiir baa laga dhigay ninkii tashuushkaba furaybo ay lahaa dowlad tuurle toosimaysooy dowlad haddana markii dagaalkii suufololadii iyo wixii la sheegayay qoladaa garxajisa la dagaalamaya waarda runta ilaahay baa jecel dagaalka qayb buu ka noqday isagoon xilba u hayninba walaahi inaanu inay cigaal xilun wahay ilaahay mayna dilaya ninkaa ilmaadeer baan waxaan anigu dadkayga ma nabici laakiin dadkan daba socdo oo dhan waxaan isku nacaynaan isku haysanaa waxa weeyaan afartaa tuug ee maafiyada ee munaafiqiinta igamana xigaan runta waxaan idinku soo celinaya kuwiina runteedu dhibayso war aniga facebookgee ka baxa hadalkayga ha dhegaysanina kuwiina ku soo ammaana anigu shakhsigaasaana cabsanaan iyo dee in badanoo fikirkana la qabto intiina kale oo dhan oo muuse bixi soo ammaana maxamed kaahin soo ammaana aniga ammaaniga heli maayaan waayo waa nimanka mustaqbalkii soomaaliyeed baabiyey siyaad barraa saxsanaan anigu melihi haddaad dee caqligiina iyo garaadkiinu shaqaynayo war wuxuu ahaaba uu ahaa siyaad barre dhimay meesha ka bax ma aha in saacaddan ilagee fadhiisiiyo siyaad barraa ina xasuuqay 60kiibaa soomaali war xabashigan maanta ay haystaan arkaya waxaan arkayaa iyagu maanta waxay samaynayaan okay maxaa la yidhi meedka u dambeeyey kaa la sii sido maalin dhaweyto oo aan saa usii fogeyn nin suldaan sheeganaya oo ilaa magacaygii ku hadlayaba anigu meeshaan iska soo galnay sheegaanta awowgeyna iguma odhan sheegaan baad aabbahay cabdi aadan maxamed caldarbaanna igulamuu dardaarmin oo ma odhan qabiilkaaga sheegaan baa la yidhaha laakiin waxaan garanayaa un inaan soomaalina ahay sinjigayga guud iyo sumadayda gaarkaaga guudna soomaali tahay qabiilkeena hoose reer qasax haddii laga daadiy waana dee habar jeclaah oo faarax abdilo reer daahir ahay oo ma garanaya anigu sheegaan nin burco ka hadlayay baan arkay maalin dhawid oo suldaan sheeganaya oo leh qabiil baan suldaan u ah maxaa wuxuu ku hadlayay inanta reer daahir ku dhalo abti baan u ah bal nima yahow anaa ilala yaabaa qabiilkee oo sidaad inantan iminka anigu carruurta haddaanu dee isaa ka baxsanayn weliba kii isaaq buu leeyahay inanta reer daahir dhashay waa qabyaalo caadi u qabo bal ilaahay baan idinku dhaarshay soomaalidu waxay tahay rag cadaalad waaya ama dee sideedaba sidii cawsha kale yaa kaa lama qaban ciidamay xidhin waxaa taa ka sii xun shiikh iyo shariifba qabiilkan ka soo jeedaa meesha waxaa lagu calimasaariyo suldaan nin suldaana baa lagu calimasaariyo iyo ugaas kareerdoodka qabiilkayga habar jeclona way fadhiyeen oo waaba loo sacabatumiyey kuwa anaguna nasaysanay udha cabdisalaano nin waalan baa tahay iyo murtad baa tahay ninkaas sidaa uu hadlaya ee suldaanka reerkaa sheeganaya dawliye subayr awal baan suldaan u ah maca qaar salaadiina iyo qaar culimo iska dhigay qaar masaajidada galoodha hawan tukana saacabkii u tumiyeen yes waxaasaa lagu qancinayay okay way ku faraxsanayeen maxamed kaahin wuu joogay wasiirka arrimaha gudaha wuu daawanayay muuse bixi sidan oo kale madaxweynaha uu sheeganayaayo wuu taagnaayo juuqa ma odhan okay waxa ka daba hadlay muddo malaa 2 casho muujiinay u dhaxaysay maalin nin kale oo suldaan oo la yiraahdo dee waa salaadiin kan kale suldaan weeye ninkan nacid buu suldaan iyo waa suldaanade nin suldaan oo aniga abtigiina weeyaan haddaad doontaan waa hadla waxtaan cabsanaan qabyaaladii buu adeegsanayaa abtiyaashi kuwan kaleba waa adeeraday aniga kana waa abtigay midna dhinacayga la dhig maayo laakiin cadaaladdan ka hadlaya suldaan xasanna wuu khaldanaa khaladkiisina waa loogu sacabatumay maxamed kaan ugu sacabatumay ninka la yiraahdo musabix ugu sacabatumay habar jala raali bay ka ahayd
buurmadow markii horeba isaguna waxaa ku heli jirayna siilaan raalli buu uga ahaa markuu lahaa way naga baqaan garxajskiyo way baqanayaan 7 sano aan meesha la waaliyay ee ninka la yiraahdo Allahu musta'an silaayi iyo sulay waxa moogayna sanadkii hore malaa yara caadi ahay inan kan yar uu soo dagooyay baasha morgan wax cunay maxamed xaashi wax boobay dekada la iibinay dhulka la iibinay shirkadaha inuu Siciid laga soo kireenay internetka lahaa Djibouti iyo cable-ka ragaasu way iska aamusnaan oo saasi u yeegay laakiin si cadaalad darro markay socoto marka dambe waad qarxaysaa maanta waxaan arkayo burcaka hali rag waaweyn oo odayaal ah ma sha Allah oo rag xitaa waxaan ba u soo joogay ama marka leeyahay waxba la dagaalamay adeeraya ma qabata in Sultan Maxamed Muuse cunay Sultan Maxamed tiraahdan dil khalad buu galay oo waa dambiilo oo waaran loo jaro hadaa taadan ba waxa dhahabada anigu waxba igama garanay waa abtigi wax noocaas wallahi waaqif oo waa qabyaalad oo waa qoqob oo waa munaafaqad hal soo qabto hadii cid loo jarayo waaran kii hadalkan ba bilaabay ma oolay lagu jiray reer baas ugaas dooranay intuu halka istaagay ba wuxuu yiri sheegaan baan isku nidhahayo habar jarada maca dad kale fadhiyo meeshu mahwi weyn bay heedo in sultaan lagu calaamad saaray war ninkii waxa lahaa maxaa loo qaban waayay maxaa loo xiri waayay Muuse bixiyo oo in ognahay xitaa maamulkan imika anigu maba ku sii daadagay isku koobay haday tahay xogayaa madaxtooyada xogayiisa gaarka afayeenka madaxtooyada chananka ciidamada gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka arrimaha dibadda isagii oo madaxweyne sheeganay bal intaas waa isku reeb maxaa ka loo xiri waayay maxaa loo leeyahay waxa la soo qabanayaa Muuse cune dambiga uu galay isagu waa maxay hadalkaas uu buu yiri sheegaantana kana yiri isna wuxuu ku jawaabay sheegaantu iyaga madaxweyne soo anaga sheegaan hadda ku hadasheen habar jeclay saacan Muuse ama habar waliyo saacan iyo habar jeclay deedikuna ma idinka madaxweyne soo waa dulmiga meesha ka socday ka horta soo qabo Maxamed Kaayinu haddaad nin garasho le tahay haddii kale niyo waxa tahay ninna caadi ma baajo bahalna ciidin ma daayo war dagaalkii 1992 baa habar jeclay habarunis isku dirtay wala isku rogmaday burco wixii ka dhacay adiga mas'uulka ahaa waa lagu dagaalamay 1994 kiba ninka la yiraahdo Muuse Bixi war dadkan ciyaalkan aad khaldaysaan anagoo markaa waanu yaray laakiin taariikhda waanu haynaa taariikhdu nagama nuusana 1994 Muuse Bixi ninkii lahaa ahaa anigoo wax dili kara duca qaadan maayo ha Soomaali halaga hadladeed qoliyaha Soomaaliyeed anigu lama hadlo kuwa dhinac uga ka hadlay anigu cadaalad darrada meesha ka socotaba waan ka hadlay garxaj Soomaaliye gardaray khalad baana lagu wadaa waana gob oo way dul qaateen inaad tiraahdo maanta iyagana salaadiintoodu TV-ga ma soo fadhiisan karaan hal la qabqabto hal la xidho kayguna boqor buur madow oo shalaytana waxa duubayna soo doonaabo hadlaya because of his sheegan waa sheegan wax la yiraahdo qabiilka ku samaysteen fulinimada u samaysteen adeer reer waa khalad ka soo qabta marka hore adiguna waxaad ahayd marnuu ka hadlay been kuma saareen ninkii yiro baaday geedkii munaafaqada sameeyay adiga iyo Saleebaan waliba ku darso ninkii loo oran jiray Cabdiraxmaan Tuur aad saga imka yeerinaysan iyo qabiilkiisa ay waxa aad sida gaarka u xaganaysan wuxuu ahaa ninkii 7 wasiiradin siiyay adiga iyo Saleebaan kaasuba maxamedow aad wasiirada u haydeen markii dambana aad ku shimbarwaaqinaysan Allah haydeen dawlad tuurle toosimayso dawlad tuurle deedkuna maanta dawlad sheegaana baad sino saxmatiid maxaa wala yaabaysan ninkii maanta hadalka lahaa caawa dhigeysanayay waa abtigay meel uu jooga baad doon salaamay wax xaq u kaal idikuna dawladdiina markii ay habeenistu madaxweynaha ahayd waxa la yiraahdo dawlad tuurle to idikuna maanta dawlad sheegaana baad markaasi kasto dhan oo fashilanteen labadiina askari inaad dagaal talabaad war bal maalin dhaweyd baa la doortay oo aad meesha lidin cumaamaday cidna idin ma dooranaya wax boobteen durtaba waxa bilowdeen dagaal tukaraaq la weeraro dadka hala la dagaalamo dadka reer tukaraaq waxaan leeyahay anigu oran maayo seexda oo faraha kala bax oran maayo horta nabadda ku dadaala waxaan la hadlayaa nimanka iyaguna awiyadee halka daraawish la doonayo in khasab lagu islaamiyo igana la rabo khasab wax Soomaaliland la yiraahdo lagu raaciyo horta marka hore nabadda ku dadaala waayo waxaan ogahay nimankiina daraawish idinka laftigiina qayb badan oo idin kamid ah oo macaan jecel noqotay inay nimanka la socdaan iyo rag badan oo asaasaqay uu kamid yahay maxaa la yaabaa askarta qaar badan oo asaasaqay baad media ka daawanaysaa marka dhageysta suubanaysaa niyo qofkeen daadiisu inta leegtahay
ee soomaalinimadii wax ku soo bartay ee calankii wax ku bartay ee dunida soo arkay ee haddana sidan u hadlaya goormaa garaadkiisii iyo garashadiisii waa garasho guurtay weeyaan iyo caqli guuray waxaa ka mid a nimanka axmed siinaaya kow ka ah waa nin weyn oo siyaasi oo soomaaliya wasiiruu ka soo noqday wasiirka qorsheyntu mar ahaa dunida iyo siyaasadaha caalamiga uu la socdaa waxa uu number 2 ninka la yidhaahdo cali khaliif galeen waa la mid waa professor soomaaliya markuu ra-iisul wasaare ka soo noqday meelahay ka mid yihiin baan idiin soo wadaa markaa idiin sheegaya waxa kaloo ka mid a war ilaahay mayna dilaya waa nimankaas caadi ma ahayn waxa ka mid a professor ismaaciil hurre buuba wasiirka arrimaha dibadda markii marbu ahaa dowladii Soomaaliya taadu raggii Soomaaliyana wuxuu ka soo noqday inkastoo dowladii dambe Soomaaliya intii Maxamed Saad Barnaamij ka maqnaa wasiirka arrimaha dibadda wax qabtay waxa ka mid a ninka la yiraahdo professor Samatar waa nin professor oo nin weyn oo ummadda Ilaahay Soomaaliyeed oo dhan ay jecleedo dunidana la haysto okay nimankan Ethiopia taloxniye kala baxday waxa kaloo ka mid a oday raaci la yiraahdo mar wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland laga dhigay xilliga Daahir Riyaal waa nin weyn oo odayo safiirka Tansaaniya meelaha soo hanjay waxa uu faahfaahsan waxa kaloo ku jira labada askari ee iga dhigba waaba askartu dee dunida iyo international relationship waxa lama socda waa waxna la dilo waxna la xiro ilaahay baan ku dhaarshay nimanka waaweyn bal marka la wareysanayo waxa uu fiirsadaa hadalladooda waan dhageystaa Soomaali bal idinku dhageysta waxay ku oranayaan xuduudkii laba dawladood baan ahayn bay ku oranayaan ciyaalkan yaa waalay waa odayaasha laba dawladood oo isku darsaday war labada dawladood xagee ka talin jiray yaa madaxweyne u ahaa Soomaaliland waaga yaa sa koonfurta Soomaaliya madaxweyne u ahaa maxmiyadii gumeystii wuxuu haystay dhinaca waqooyina Ingiriis baa gumeysanay walaal hada inoo shargarayo beenta runka dabageeya way ciyaalka dambe dhalan doonay xitaa been u sheegeen war xaqana Ingiriis baa gumeysanay oo gumeystaa bay ku sirayba xaqaasna Talyaani baa gumeysanay yaa laba dawladood ah oo isku darsaday yaa bara saabaha yaa madaxweyne ka ah yaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ka ah balbe dreaming baa ku jirtaan oo been baa la idin sheegay yaa madaxweyne ka ha sheegaan soo cadeeya hadii laba dawladood oo Soomaaliya ay isku darsatay ahay noo soo cadeeya adeer mijirin kuwana Somaliland British Protectorate baa loo jiray oo Ingiriis baa gumeysanay waliba dadka inta oo golde kuwaasna Soomaali Italy bay ahay 1960 June 16 June markii calanka Soomaali la ogolaaday calankiisa Hargeysa laga taagay calanka buluuga waa sidaas la isku raaco calan baa xagga la wada geeyay kaasa la wada qaatay kuwaasna Talyaanigii uu ka kacay saasa markaa lagu heshiiyay ka horna way u jirnay gumeystaan ka horna dad jiray oo Soomaaliyeed baynu ahay odayaashan iska hadlaya adeer aan ma garanay odayaashan hadlaya ma yacniga xumaanta iyo nacaybkeedu ku shubaya adeer reer taariikh been oo khaldan hadaba waxaan u soo daadegaya nimankaan aan carab dhigay ee ku jiro professor Buuba cali khaliif galeen Samatar axmed silaayo waa afarta ugu waaweyn labadan askari iyagu waa group C meelahaas noqonaya caawil nin kale oo leeyahay waxay ku hadaaqaan ku soo celiyaan xuduud beenaadkan xuduud baa halkaas oo laba dawladood oo isku darso wax soo saninkaas wax micna lagu ka hadlaya bildhigiiso waa maxay la Buuba ka leeyahay waxaan fayraskan marka la isku daro fayrasku uu ku saameeyo waxaan dawo isku damid oo isku dacad waxay ku raayeen laba dawladood oo la isku darsaday oo tabeetana Soomaaliya labadii dawladood heshiis war dawladuhu koomeeya talabaad adeerayaan nimankan daraawiish ee dhulkooda ku haysataan taariikhdan aabaabiinaysan ilantiye sanaba wala soo boodaysan te daraawiishtu maxay ahayd bal daraawiish baara daraawiish ninkan Ingiriis iyo maca Talyaani baa la dagaalamay ma bay raacinba umay hoggaansamin xuduudkana le hadii gaal yaro cadaan oo Ingiriis intuu carray halka qeyd dhigay oo dabana dad iska calaamadiyo dhulkoodii ma wax lagu doodaaba ma wax nin weyn intuu media la soo fadhiistay yiraahdo waa xuduudkii noocaas ah adeer waxa sun wixii idinka iibsanaya ma waana dhimanaysaana ilaahina ka baqa oo dadkana beenta ku shubaysaan ugu soo celinaysaan beenta ka daaya Soomaaliland wax la yiraahdana oo dawladana ma jirin koonfurta wax la yiraahdo dawladana ma jirin maamulo waxay ahaayeen wax hoos taga guumeystay kuwaasaaba xoogaa yar oo maamulo kuwan laftigood sayidkii muxuu dagaalamay soo sayidku lamu dagaalamaynin nimankii Ingiriiska lamu dagaalamay waxana beenta hadaba dadka ku waaraysan ka daaya waliba Muuse iyo maanta chance kale markaa weydeen oo aad wax boobteen oo albaab kasta idin ka soo xirmay sidaas aan ku dhamaysanaysan waqtigana ku xisaabtama dhalinyaro berika maalin aniguna oday baan noqonaya idinkuna odayaal baan noqonaysa haddii boqol baad ka sheekeynaysaane
war 500 years later haddii la sii jiro fikradana fikrad hirgalaysa maaha Soomaali baa la kala jaraya iyo Soomaali baa ayaa laba dawladood noqonayso wax Somaliland la yiraahdo baa Somaliland haddii la leedin waa la jaray adeerayaal hal la furo dood khasabna waxba laguma jari karo dad baa degan meeshan aad doonayso inaad maanta amxaarad ku haysato xoog waxaad ka faa'iideysanaysaa burburka Soomaaliya oo dawladii Soomaaliyeed baa burbursan waa reer sanaagde ma ogola reer soolkan macaa kuwan laas caanad ciidan ku haysta ma ogola reer awdalna ma ogola annaguna ma ogolin kuwa gudaha joogaana kala badhobar ma ogola waa fikir ka yimi afar nin oo bahdilan oo aan han lahayn oo waliba isku beela marka beesheen waxaynu dambi wadno oo wadno waynaga maanta inaga madax isku jirnaba oo aynu way markii hore waxaynu ku heshiinay baaba ah abtaad baan ku salaamaya waxaanaynu ku heshiinay ayaa markii horeba khaladaba hal xaaraan in nirig xalaala ma dhasho markii horeba inagii baa sheegaan si kalaaba waynaga maanta cadaalad darrada ay ku dhaqmayaane loo badheersan bal carruwa taas salaadiin baa leen haddaan habar jeclanay waa banu soo daadegaya reerkayga kuwa macaa boqorreys ku sheega baa leen bal nin qudhoo khaladkaa ka hadlaya arka maanta suldaan maxamed muuse cune khalad bay wada saarayaan waxay leeyihin fidmuu wada oo kii idinka dul lahaa idinkoo isu dhan habar jecloy innagoo isu dhan anigu tolkay wallaahi weligiiba runta halkaa idla soo fadhiya ama igu naca waxay ku odhanayaan xataa mararka qaar oo ciyaalkooda iyo fikradahooda u soo dhiibaano ku odhanayaan cabdisalaam waad naga tagtay dee annaga ha naga hadlino oo xaggaan aadi waad naga tagtee waa sheeko jilicsan war waxaas waanay anu xaggaan aadi Soomaaliya oo olaysaayo madaxweyne farmaajo waa madaxweynahayga rasmiga ee saxda inooda oo odayaasheeda iyo Somaliland iyo waxaan oo meegliin adar aniga ka reer Burcane dee aabahay la awowgay ilaa hooyaday dadkaygu daadar wala sag soo jeeda cadaalad darradana ilaahay baa nacay raga cadaaladu waa yaray sidii cawsha kaliya anu khalad deedu kuma taageeray hadda idinku suuxsantiino aad wada suuxsantiin carruwa ka sahal helo nin hamar jeclaayo khalad ka maanta sheegaan sameynayso wax xidhaysaan wax kula xarig baa ku yaala oo maxaa kororsanaysan been baa halkaas ugu rusteeno ha ka hadla maxaa kana saacabka u tumaysano waxa leeyahay waa fariid suldaankan yare yaa doortay isagu waa ku meel gaad talabaad markay doonaan meelaha ku qaylaano waa ciyaal suuqa suldaan weyn bay ka dhigaysaa suldaanka subeera walba wuxuu yiri jeegaanto oo inanka abtigo u ahay inanka cibraan abtibaan u ahay kan kale waxaan abtibaan u ahay wallahi madaxaasa aniguna ilaa yoom ilqaamaha rumbaan la daba taagnaanaya dhamaantina munaafiqad bas quraacdo haka alla hadii la xidhana ka maanta ku dadagay maxamedka wallahi maxamedka inuu caadadaad iyo dhaqankaaga adiga iyo Muuse Shaani ayaad soo celinaysaa haddaan maanta xidhid suldaan maxamed muuse cunay iyo suldaan kale oo jeegaan ka hadlay wallahi haddaad xidhid masaakiin baa waxaad barateen in badan baa laydin dulqaatay toddobadii sanad meesha haysateen aad sheegaan ku haysteen Axmed Silaayo waxa ma ogeene aad meesha idin fadhiyay dhul iyo cirba waa boobteen iyo badba maantana idinkoon wax badan ba jooginba ayaa taagan salaadiinta sheegaanta soo hadal qaata hal xidho kuweena waa free wardani ninka sareeya ma jiro ninku yiri sinaan meena aadna buri sareentiis nimankan adeer nin wax dhayalsadana nacas ku hadiya jeer ama doqonto wuxuu dhayalsadaa ninka raga oo yiraahdaa waxa ma aho aniga fariida waa rag waxaana dal soo taagan tahay sheegaan baan la yiraahdaa waxaana nahay waa rag kuwa tukaraqaad ciidanka amxaareysano ku haysanaysa leedahay tukaraq baan ku qabsanaya waa rag waana kugu soo bixi doonaan insha Allah taala anaguna kulama qabno ummaduna idan lama qabto labadiina munaafiq inta burcaya hargeysa dab ku shideen baa doonaysaan inay xaqa ummadda u jeedisaan oo ku mashquulisaan Puntland bayna soo weeraraysa Puntland baa sidana waa caadadu dadkanaad wax ma gartada waara oo ku jeediya Puntland baa idan haysata daarood ka bayso war waa been madaxweyne farmaajo u soo jeedin Cabdiwali Gaaska Puntland baan hawlihiisa shaqadiisa iska wata iyaga ku dambeysaya khaladaadkii Djibouti kaga soo dhacay ee ku fashilmeen Cusmaan Umar Galeeri war maamul baad sinada Soomaalidiina ilaahay dhinac ka raac Ethiopiankii kaba soo doolay Masraali misaga waxaan Ethiopia wuxuu ku daraysanayaan dekedana siiseen intaas ayaa laydinkaga soo adeer markaad waxa ku fashilmanteen ayaa waxa bilowday inaad tiraahdaan dagaalan burca karin laakiinse karisxun iyaduna wax kula wallahi maanta taa u dhaqmaysaan abar jeclay
iyo saacad muuse anigu saacad muuse marka horeba iskuma sii badnin awal horena waxbaa iga tirsanaysay laakiinse idinka laftigiinu adeerayaal dadkan aad waalaysaan ee reer burco wada degan ee togdheer wada degan ee doonaysaan aad qoriga dab kale isugu dhiibtaan inankiina yare ka soo carareen u suldaanuma aqaane maafiyadan ka soo cararay hargeysa ee la yidhi waxaad dagaal ka soo rido habar jecladaa suufiya iyo habarunistaa fudude halkaa dagaal ka rid dagaalkani waa kii wax lagu saxi lahaa soomaaliya wallahi hadda dagaalada qaar marmarka qaar marka ay khaladku farabato dagaalku mararka qaar waxbuu saxaaba maxamed kaano maanta waxay isleediin ciidan fara badan baa haysta ciidankaa ku faanaysaan waa dadkan qabiiladan isu yimi haddii la kala dhaqaaqo saxaa loo soo noqonaya miiska wada hadalkee saxdaabaa la isugu imanaya adigiyo ciyaalka yarraa beenta u sheegtaan iyo afartan nacasaad urursatee meelaha kaa soo ahaa la yidhaahdaa sheegaan baa la yidhahdaa qabiil gaarkaa samaysanaya adeer menani maxaan adigan siduu noo sheegan karaa oday yaroo ka soo cararay hargeyso magaceega ugu ciyaari kara adeer maxamed kaainkaada khaldaya nagama xiga daahir waa ogey lixaad ninkuu leeyahay hadduu inanta reer daahir war cabsaan cabdi aadan maxamed caldarbaan aadan kaliil daahir baan kaa lixaad ba anaga adeer waxaan uga dhow originkii daahir baan abtina uma noqon karo magaceegana sheegaan lama yidhaahdo isaaq baanu nahay abar jeclaanu nahay bes soomaali baan ku sina sheegaan iyo nin liito oo baqanayaba sheegaanta maxaad u samaystay maxaad u sheegaan boqor buur madowgana waxa weyn nooga dhigaysaan yurowe markaanu joognay bakhaar yar buu halkaa buurta yurowe basaskii beer aadi jiray ciyaalka mala waxba ma ogo taariikhdoo ma garanayaan halkaasuu bakhaar yar ku haysan jiray markuu kacay ee bakhaarkii wixii ka burburay ayaa nin juujoolo la odhan jiro malaa saacad muuse aha ayuu dhaqaalay iyo waxbay isku yara qabsadeen kaybaa sudan in waa dee dhaqan guri wey kiibaa sudan laga dhig berberuu ka aftoobay juujuule intuu xoogaa reerkooda xaggan laba qowdan dhinacaan berberaya habar jecla malaa ka diganta wallahi intuu halkaa juujuule ka aftoobay ayuu buuraha iyo meelaha ay degaan ayuu la galay ninka la yidhaahdo buurmadow iyaguna waa kuwii saleebaangaal aftoobay ee hargeysa qoladana saleebaangaal ka aftoobtay waa tiisaa la isugu ceshiday markaa waa inay ka suuroobi karto ila waa ninkii wax afduubi jiray inuu magaceega iyo karaamadeeda baabiiyo oo intuu meelaha la soo istaago yidhaahdo sheegaantu malaa nimankiina saacad muusow annaga way naga baqaan garxaajiska maxaa dhahay ninkii meelma baa lahayd ninkii wax afduubay baa shalaytona siiroo baa lahayd goormaa taariikh lahayd way naga baqanayeene malaa idinkaa farabaro ku sitee wax iska celiyo oo noocaas baa karaamadii iyo ummadda iyo sharaftii nagaga ciyaaray qolyaha kale ee dardaarankayga ugu dambeeya qolyaha daraawiish waxaan leeyahay nimayaw horta idinkana magaciiyo karaamadii waxay kaga ciyaaraya siyaas dhinacan usii cararaya iyo mid dhinacan usii cararaya oo waxaan isleeyahay malaa daraawiishta saxdeed kuwaasu ma ahayn laakiinse ku dadaala kuwiina dibadda joogay iyo kuwiina gudaha joogooba inaad istaageertaan oo aad taageertaan hadba ninkii soomaalinimada u dhow ee soomaalinimada kaa maalgeliya oo weliba kuwa maanta ku hadhay khaatumada originka anigu dee ra'yigayga cabsaanaan kuwa ra'yiga ku hadhay allah mustacaan khaatumada taageera cali khaliifna waa la fashil odayaashaa fashilmayn buu ku jiraa oo maantaba wuxuu ku jiraa kuwa dagaalka odayaalkaa tukarradha iyo meelaha dagaalka samaynaya idinkuna sidaa sameeya halkanna insha allahu tacaala waa la isugu iman doonaa labadan maafiyada ayaa askartaan waa hiddadoodii iyo dhaqankoodii waana waxay ku burburi lahaayeen bil baanay ku fashilnay imikaba bil bay ku fashilmeen kuwaasu 2 sano dambe xitaa ma sii joogi doonaan waad arki doontaa waayo rag xitaa wax sax ay is odhanayaan ma aha oo dee waa nimanka sultaan xasanna xidhi waayey ninka la yidhahda sultaan maxamed muuse cunana waaranka u soo jaray inuu iloo sheegayo 4 casho iminka burca waaran ku yaallay muxuu sameeyey ma waxaan kani sameyn wax ka duwan buu sameeyey waa taa cadaaladooda reer somaliland ama dadkiinan isaaqow anu somaliland dee ingiriiskii meeshan uu calaamadiye waxaan idinkoo qura ma lihidine kuwiinan sheegaantoy caqliga muuse bixiyo maxamedkan waa kaa maanta dadka la kaxaynaya waa kaa galbeedka burco cadowga u yaqaan waa koonfurta hargeysana cadowga u yaqaan waa ka ummadda saa u kala qoqobaya walaahi way fashilmayaan inaanay meel fog gaadhin markaa ummadda soomaaliyeed waxaan leh ciyaalka yaree baaq badan u diri maayo boodhare waa laaduguna noolow ciyaalkana lagu mashquuliyo lacagtana lagu soo siiyo ee la yidhahdo software iyo programistayaalbaati nimankan facebookyada ka xidha kelimaday soo dhigaan burburiye codka ka xidha adeerayaal waxba waad nagu dawaqaysaan haddaad naga xidhi karaysaan kaaleya naga xidha annagaa soomaaliya runtaanu ka hadlaynaa dowladdeeda saxdaa soomaaliyana waanu taageersanahay idinkana waxaan idin naqaanaa kooxda hagbadland
baanu idin naqaanaa oo weliba amxaarada u shaqeeya amxaaradaana u shaqaysaan iminka wax kale meesha uguma carreen amxaarka inuu idhaahdo hub iyo ciidan iyo wax soomaali lagu laayo qofkaad daadinaysaa dhiiggiisa waa soomaali baad halkaa tukaraq iyo garow uu ka yimi iyo wax noocaas talabaad bal caqligaaga iyo garaadkaaga ummaddaa soomaaliyeed ee walaalaha ay isku dhex jirta hadday yihiin reer boosaas iyo reer garow iyo reer hargeysa miyagaa kala maarmi kara maxaad u kala didinaysaa qofkaagaa liitow reer hargeysa iyo reer burco wallahi maana reer boosaas iyo reer garow ka maarmi karan gaar ahaanna markaad dekadii berbera halkaa cunaha dad ku dhigteen reer burcaha bilaa caqliga iyo reer hargeysa iyo reer wajaale wallahi baydaan boosaas ka maarmi markaad muuse bixi u sacabatumaysaane annagoo halkaa joogna baan step by step idina socna sharaabka yar iyo wallaahi biyaha aad cabtaan bismillah wallaahi sharaabka yar ee aad cabtaan iyo biyaha aad ku cabtaan hargeysa caqligiina iyo garashadiinu ha dhaafto sheegaan wax la yidhaahdo iyo qabiilkan laydinku khaldayaysaa waxay kala soo degaan boosaaso waana sababaynaya maxaa boosaaso geeyey reer hargeysa reer burco dee waxaa geeyey dadku ma kala lahaa boosaaso cidna lama galeeyo qof isaaqa markuu boosaaso tago idinka ilmo xayawaano kuwan idin waalaya lama yidhaahdo hargeysa burcaad ka timiya naga tag oo isaaq baa tahay naga tag halkaa si gobanimo leh oo sharaf leh buu ganacsigiisa iyo alaabtiisa ugula soo degaa cidna lama hadasho berberena waa lagu qaaligariyey boosaasaana u jaban kuwii baa la doonayaa in maanta la kala diro oo cidlo lagugu ooto oo wax kastaa kugu qaaligaroobaan oo ninkii miiraa la odhan jiray amxaarka ah ee qorshahan watay 19% laga siiyey berbera uu bagaashka kuu soo dejiyo oo kuu qaalgarayo intuu jijiga geeyo dabana kuugu soo istaamir oo afkii amxaarigu ku qoran yahay kuugu soo dhufto dada hargeysa berbera kugu soo celiyo nimankani noloshaada bay la dagaalamayaan nimankana see kaa dhigaya madax baanu kunay waayo soomaalimina ma doonayaan warbal 28 sano inay hortaagnaayeen maxay kuu qabteen dadka iyo dalka maxay u qabteen maxay shaqo abuurkaaga qabteen waa taasoo dhalinyaradu way soo taariibaysaa shaqo la'aan baa jirta cirkaasaa la isku geeyey maciishadii sixir barra waxba ka qaban maayaan qabyaalad waa iyagu waxbay boobayaan wax sheegaan lahdana way samaysteen si gaar xataa sheegaantaa qaar baktiyaanba walaahi hargeysa meel dhaweyto nin ahaan jiray baarlamaanka iyo wuxuu la yidhaahdo baarlamaankan hargeysa nacnac wuxuu wax u qaybinayay meeshanay madaxtooyada ka dhigteen dabadiisa state houseka dad masaakiin oo babaqtiyay oo dabkaba loo shidinba muuse bixi war uma hayo maxamed kaankaasu war uma hayo laakiin wuxuu war u hayaa taajirka inaa siciid oo kale ee lacagta haysta dee waxbay la boobayaan kaa way ogin daabshil oo kale way ogin oo isaguna lacagta siiya markay ku jiraan kaambinadii wax noocaas war dowladuhu waxay u shaqeeyaan dadka jilicsan uma shaqeeyaan dadka lacagta haysta nimankan markaa walaalayaal 28 sano ee ummadan been ku shubayeen halkaa cuna ay ku dhigeen soomaalinimadii bay ka hor istaageen sharaftoodii bay la kala dagaalamayaan amxaarna way u cararayaan intii amxaarku gartayna way garan kari waayeen amxaarkanba way islaayeen oo dunidan waa la iswada laayey amxaarkaasu waa la wada dilay oo nimankaa tagrayga ahaa waa la isugu wada tegey haddana soomaalinimadii ay ka shaqeeyeen dadkiina waxay saacaddii kaga fadhiisiiyeen waxaasaanay lagu sameeyey waanay la dilay 60kiiba waxaa markaa war soo baxa dhalinyaradiina xitaa qurbaa joogtee baqanaysow soo baxa oo runta ka hadla oo 4 nin ee ummadii ilaahay koontiinarka ku xidhay ee beenta ugu sheekeynaya soomaalinimo waxba loogu diidin dowlad baan cid uga diidin madaxweynenimada meel ma inta la soo qaadaa loo keenaya xitaa waxay ku odhanayaan madaxweynenimada lama siinayo ra'iisul wasaarina waa beentood iyagaa bilaahan oo doon waayay intay amxaarkaba way garanayaan bal tusaale yar baan siinaya amxaarkaba way u cararayaan oo waa kuwan oo diyaaradda ugu duulaya bal maxaa u diidaya ninka madaxweyne ka noqda Soomaaliya hadduu doono kii horeba ha noqdo xasan sheekh maxamuud oo kale sheekh shariif oo kale ha noqdo madaxweynahan maanta ha noqdo maxamed cabdilaahi farmaajo ha noqdo ka kale iman doona haddii ilaahay ka dhigo maxaa uu ka hor istaagaya inay inta u yeedhaan oo yidhaahdaan hargeysaba kaana noogu kaala ilan waa Soomaaliyeed isku af bay ku hadlayaan waa isku diin waa isku dhaqan waa isku midab war aynu wada hadalno maxaa noo gashinee anagu halkaa hargeysa aan joognaaba oo anagana nabadda xoogaa dee nabadda inkastoo dadku samaysteen aynu wada hadalno maxaa u diidaya bal haddaanay wax la qariyo qurun baa ku jire yaa u diidaya madaxweynaha maanta intay casuumaan oo dhan hargeysa noo qaala halkan aynu ku wada hadalno ma dad kalaafa bayn ma Israa'iil iyo Falastiin bayn maxaa noo dhex galaya Ethiopia noo dhex galaysaa maxaa Turkiga noo dhex galaya nimanka intaa garan waayay
halkaasay keebla yurub la soo fadhiyaano waa niman markaa wax fahma nimankan ganacsi baa u furan way danaysanayaanoo ma doonayaan markaa ilan waxan iyagoo supermarketo idinka dowlad baa laydinku sheegayaa dadkan de wax magaratada dowladda somaliland qadiyadiisa war waxan waa ganacsi iyagoo u furan waayo nin kastaaba markuu muddo yar joogo dadkiiooba bakteeya bal iminka carab midkaa meel gabara ninka la yidhaahdo maxamed kaahin axmed ee maanta wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay hargeysa burco gurigu ku leeya waan ogi meesha xaafadda ahdo abudabi laakiin meeshan iminka hargeysa guri kiraabu ku jira caab 3 bilood kadib guri weyn oo bangalaaha dhisan waayo bal markaa waa inta yar wasiir 3 bilood markuu wasiiraado wuxuu dhisanayaa guri weyn oo dabaqaba waa guriga wasiirka arrimaha gudaha waa hantidii ummadda lagu dhisanaya faysal cali waraabo adiga arkay guri weyn oo bangalaa maalinka dabaq weyn lacagtiisu iska qaadanaya markaa nimankani ganacsi bay haystaan adiga kuu danayn maayaan kaaga soo qaylinaya hargeysa barca soo qaylinaya dhibay qofka qurbaa jooga ama qofka yar ee waxay istaanayso gabadha ay ugu mushay allah musta'an reerkii abaar baa ku dhacay macna abaarta maxay ka qabanayaan leeyaga dawladnimada abaarta wax ka qabateen waa tii markii abaartii dhacday daba dheer dawladii maxamed saabir waa tii diyaaradaha inoo soo dirtay waliba gobolka tog dheer bay ugu badnaan abaartu ee la geeyay meeshii maxaa la oran jiray sablaala iyo meelaha dadka la geeyay dawladnimadu dadka way badbaadsan waxba kaama qabanayaan kii shaqada ku abuur la waa kan hadaba aniga igu nacaysan kule war kuwan maarata tuugadan iyo waxan shaqalaanta waxa kugu wacan waa kan abaarta waxa ugu wacan deegaanka waa kan makaamaba fogaba ninkaa fogba ninkanaad raadinaysaa leedahay dowladahaan baana ku dhacdayo sixir barkii baa cirkaa marayo xoolihii waxay cunaan bay waayeen waa abaaro waxanba ninka sameeyaa waa ninkanaa dowladnimadii kuu diiday marka aad dowlad caadi noqotid ee dunidu ku ictiraafto ama de waaba la ictiraafsan yahay dowladdeena Soomaaliya lala shaqeeyo ee dowladnimo laga shaqeeyo waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo investment international investors kiiba ku imanaya dunida tabcan waxaad helaysaa gas jaban maraakiib gaasa berbereeyo boosaasi muqdisho ka soo xidhanaysa electriga lagu jabinaya oo dawladdu waxay ku sameynaysaa kaabis bad mala garanaysa ayay ku sameynaysaa dhuxushan laga shidayo deegaanka iyo dhirtan la jarayo ayaa laga maarmaya kadibna marka laga maarmo waxa badbaadaya deegaanka xoolihii waxay helayaan waxay cunaan abaartan faraha badan ee soo noqonaysa ilaan roobkani iskama doo cilmi rabbaaniyana uu ku dagaa laakiin waxa soo qabata dhirtaa soo qabata daruurahuna roobkuna de ilaahay baa sameeyay laakiin daruurahani waa u filter dadka yaqaana agriculture-ka iyo markaad wax akhrista ha fooranin noono bal dadka xitaa cilmiga beeraha iyo leh bal wax ka dhageysta deegaanka markuu dhirtu ay nooshahay ayuu roobkuna badan yahay waxa soo qabanaya dhirtaa soo qabanaysa ciidu laftigeedu marka ay dhirtu xitaa ciidda way qabataa waxa ka baxaya allahu musta'an cawskii iyo ugbaadkii laakiin marka geedkii la guba gebigiisaba meeshaba saxaar isu bedelaysaa maca ciidii baa guuraysaba marka roob qura helo ciidii baa meesha ka baxaysa waa deegaanka shaqada imanaysa safaaradii baa ku imanaya international company international baa ku imanaya adigii baa lagu aaminaya lacag badan iyo weel banka lacag amaahinaya sida dawladaha Ethiopia-ka imka boqolkiiba allahu musta'an dhowr iyo 70 way shaqeeyaan inaguna boqolkiiba 0 bay shaqada ka taagan balaad sabayaga dadkan basaska subaxdii ku jarmaadsan de shirkadaha ka shaqeynayaan macal shirkadiya ajaanib ayaa ku imanaya taas waa shaqadii waxbarashadaadii mid kuwaala tilabay noqonaysaayo dhulkan ay waxbarashada waadin aadimin caafimaadka kadalik nimankana hadaba waxaas oo dhan iyaga ka hortaag waxaas oo dhan se waxay ku oranayaan oo kale xataa waa dood jaban niyo annagu nabad baanu haysanaa waradeer nabadda ilaahay baa bixiya nabadu maxaa dheer sootan maaha dadka soo cabaadayaane waa bakti baan ku jirnaa okay waxa kale oo ay ku afgobaadsadaan oo ku soo celiyaan inta badan waxay ku oranayaan niyo annagu yaan wax ku darsanaa nabad baanu nahay oo haddaan Soomaaliland nahay nabad baanu dee koonfurti waxba kama jiraan hal mid baan kala yeetaana iyaga meena mas'uuliyad ka saarnayn iyagu xagee Soomaaliya isaga dhex saaraya ninkan hargeysa jooga ee kula Soomaaliland baan miyaanu Soomaaliya ahayn de madaxda sheeganaya miyaan isaga waajib ka saarnayn inuu ka shaqeeyo amniga iyo sidii Soomaaliya isugu iman lahayd iyo wada jirka yuu ku riixaya miyaan mas'uuliyad ka saarnayn Muqdisho intuu Itoobiya sabab u yahay muxuu garan laayay isaga laftigiisu kan hargeysa lagu haystaa inuu ka shaqeeyo
oo kaalintiisii iyo roolkiisii ka qaato sidii Soomaaliya ay nabad u noqon lahayd kadibna markuu nabadda ka qayb qaato dowladnimadana uu qaybtiisa iyo dhinaciisa uu qabsado halka laakiin dadku way soo fadhiistaan fadhiyaan yaan wax ku darsanaa dunida Soomaaliya meelo taqaanaa qaybaha nabadan la idinku soo celinayo muqdisho waa caasimadii waa madaxii Soomaaliya maska madaxa laga dila dagaalka muqdisho ku socda hargeysa ku socda garowana ku socda waa halkan la dagaalamayo weeyaan muqdisho okay ma hargeysa iyo burco qura Soomaaliya nabada miyaanay garooba nabad ahayn miyaan Boosaaso nabad ahayn miyaan xitaa gaalkacay nabad ahayn miyaanay cadaad nabad ahayn miyaanay dhuusamareebka nabad ahayn miyaan beledweyn nabad ahayn miyaan baydhaba nabad ahayn miyaan Kismaayo nabad ahayn nabadan yar la giriiso nabad baan intaas miyaanay nabad ahayn miyaan Jowhar nabad ahayn inta al-shabaab joogaan mooyee miyaan Soomaaliya ma inaga qura nabada kuwa kalaba wana haddana dowladnimadu u baahan dowladuna adiga u baahan iyadu kuma baahna waxa soo faa'iido aan idin soo tiriyay iyo wax kale oo ka sii ballaaran ay dowladnimadu kala maqato laakiin si haddii dowladba laga ilaaliyo weligaa dowrska bixmayso weligaa deegaankaagu abaar ka bixi maayo weligaa shaqo la'aan ka bixi mayso weligaa taariib ka baaqsan mayso sidaas uma ku jiraysa laakiin se ninka ragga naaxay ee laga naaxi waayo iyagu way naaxsanaanayaan wayiga waxa la ragga naaxay ee laga naaxi waayo iyagunba wax cunay moogtoo wax booba qofkan soo hadlay maalinta xilka deegaana way soo dhoofayaan bal imka tusaale ahaan kuwii maalinta dhawaato Silaayo oo ahaa wasiirada boqolkiiba 7 hal nin baan arkayo wasiirka ganacsiga ahaan jiro beer samaystay oo meesha waan ku hambaliyeen anigu qofka wax wanaagsan sameeya dadku hada jeer wuxuu waxba caarida Soomaacad salaano qaarna waxay kala garan lahayn barunta iyo Allahu musta'an iyo cayda waxay u waxba cayda waran rumaan ka hadlaatay iyo waxbaad mucaarad ku tahay waxbaad dhaleecaynaysaa daan waxaan dhaleecayaa kuwa negative-ka ah dadka dowladnimada u diidan nimanka naaxay laga naaxi waay intii kale wasiirada Soomaaliya dhowr iyo 70 bay ahaayeen kuwii Silaayo ahaa wasiirada wallahi qurbaan soo dhoofay ma intii saaxilka u waayeen xabal iyo ninkii loo kala tag kuwii taageeri jiray waa adeerkii waa reerkayga waa qabiilkayga halkii baa laga geeyay halkii baa reerkaan dabka shidan jirna sidii baana dabkooda u shidan kuwii aan waxba haysan sidii baana u haysanin marka waxani waa habaar mala Soomaali lagu soo habaaray waliba gaar ahaan dadkeena oo goy joogo war maanta labada nin ee halista hal laga feejignaado war nimankaas dagaal bay ku sunteen war nimanka waxa uu caadaa dagaal war ilaa nimankaas Soomaaliintii dawladda Maxamed Saab Barre ka tageen dagaal uun bay wadeen Musabbix iyo Maxamed Kay maantana dagaalkii ayay wax ku doonayaan si kala iyo ilbaxnimo kale iyo xadaarad kale iyo waxa shaqo kuma laha waxay ka dhex bilaabayaan ilaahay nuguma keenay iyagu laakiin saasay doonayaan way dadka joogaynayaa leeyin suldaankiinan xirayna keeguna way uu iska noolaanaya waa dagaal waxay doonayaan dadka sunta caadhoodaan ilaa wadad bilaadana meesha la degan dagaal bilaab ilaahay dagaal inuguma keeno halka tukaragna waxay ka wadaan waa dagaal tukaragdan iyo meeshan inagu weyneynayaan waa dagaal war marka dambe dagaal inta la dagaalamo ayaa khaladkaad ku socotaan la saxi doono aad baan idin salaamaya meel ku sugantiin ba wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh